السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني وذا سلامي دمانتينا meel walba aad joogtaan asxaabta badan waxay isoo weydiiyaan snapchat-kaaga noo sheeg run ahaantii aniga snapchat badan ma isticmaali telefoonku iskaaga jira marmarka qaar dadka aan aniga ku darsaday xataa ma daawaday marka haddaa rabtiin waa kana ku darsada laga yaabo inaan idin soo bandhigo warar oo u baahnayn duubitaan ama wararka teknolojiyada tusaale ahaan hadda Instagram waxaa loo sameeyey comment filter macnaha update cusub ayaa soo baxayo mar dhow weegan maswiiga ku xig marka adiga ayaa dooran karto sawir hadaa soo saartid ama video hadaa soo saartid adiga ayaa dooran kartaa qofka oo comment ka bixinaya videogaas ama sawirkaas hadaa rabtid waxa ka dhigi kartaa dadka aad daawanaysid ama dadka aad follow dhahday in ay comment ka bixiyaan ama dadka oo adiga ku follow gareeyeen in ay comment ka bixiyaan ama hadii rabtidna commentiga dhan waa xirey marka saas ula socdo updatekaas ayaa u soo baxayo Instagram mar dhow haddana waxaan ugu dubeynaa warar laga yaabo in aad weligaa maqlin qaybta 25 daawasho wacan wiil iyo hooyadiis waxay aadeen dalka Nepal dalxiis iyo baashaal marka waxay koraayeen buuraha waa taqaaniin gaaladan buur iyo duur kama dhamaanayaan cala ay taxaal wiilkii iyo hooyadiis iyagoo buuraha ku socdo waxay arkeen haweenay shaahi gadayso macnaha jabaladaas ay shaahi ku gadaa maadaama oo ay lahayn jabalada korkood dukaamo iyo waxyaabahaas ama maqaayado gaalada oo meesha dalxiis u tago ay shaahi u diyaarinay way ka gadeen shaahiga oo meesha lagu gado qiimihiisana iyo midka oo magaalada lagu gado isku qiimo ma ahan taasna waa normal waa qof shaqeysanayo oo shaahi illa meesha aad rabtid kuu keenay marka wiilkii iyo hooyadiis waxay rabeen in ay shaahi gataan qiimaha shaahiga marka loo sheegay wiilkii hooyadiis waxay dhahday lacagta wax naga dhin macnaha 150 waa qaali magaalada lacag ka yar lagu gadaa marka wax naga dhin haweeneydii ama haweenadii afkayma u baranayn haweeney iyo waxyaabahaas qoftan oo shaahi gadayso markay ku dhaheen lacagta wax naga dhin way xanaaqday way soo bursatay garuun ama alwaax ul ay u soo qaadatay wiilkii dhalinyaro ayuu ahaa uu cararay laakiin hooyadiis way daashay way istaagtay tuugtiin ay gashay Please, my son is wanted. No problem. Please, please wiilkaygu wuu idaawanayaa waa 15 jir wuu ka baqayaa laakiin qofta oo shaahi gabdo waxay ku dhahday dhibaatada wiilkaaga ma ahan dhibaatada waa adiga sidee u dhihi kartaa qiimaha shaahiga wax iga dhin It's okay. I'm sorry. Please stop. You're scaring my son. You're scaring my son. Please. Please just let me go. way ku qaylisay way caysay ugu dambeyntii waxay ku dhahday you crazy woman waxaan u maleynayaa qoftaas mar kale afkeed ma laga maqlaay qiimaha wax iga dhin nin oo la yiraahdo Sarfuddin oo u dhashay dalka Indonesia wuxuu aaday webiga wuxuu rabay webiga inuu ku dabaashto ama ku qabaysto webigana waxaa ku jiray yaxaas laakiin ninkan ma ogeenin webigii ayuu galay yaxaaskii ayaa ku dhagay uu dilay cidihiisa way raadiyeen dawladda ay u sheegeen waa la baaray meel walba waa laga raadiyay waa la waayay maalinta labaad miya ama maalinta saddexaad ma ogi wuxuu soo koray meedkiisa webiga kor macnaha meedkiisa biyaha kor ayuu soo koray yaxaaskii wuu dilay laakiin ma cunin marka hadda waxaa la iska rabaa yaa soo bixinaya meedkii nin oo sixroolo ah ayaa yimid wuxuu dhahay aniga ayaa soo bixinayo waa loo sheegay waxaa la dhahay meeshan yaxaas ayaa ku jiro ama webigan yaxaas ayaa ku jiro iska ilaali laakiin ninkii madax adeeg wuxuu dhahay sixroolan ahay waan soo bixinaa yaxaaskana wax igama qaadi karo sixirkeyga ayaan isticmaalaa macnaha yaxaaska waan sixiraa meedkana waan ka soo qaadaa laakiin webigii markuu galay isaga ayaa la sixiray yaxaaskii ayaa dilay laakiin ma cunin ma ogi yaxaaskan dadka wuu dilaa leh ma cunaayo wuu dilaa hooda meedkiina baxa duugta gabar u dhalatay dalka Mareykanka maalimaha ka mid ah waxay hagaajinaysay ama waxay nadiifinaysay gurigeeda marka waxay degneed guri oo qayb hoose leh macnaha guriga hoos dhulka hoostiisa wuxuu ku leeyahay makhaasiin marka meesha iyadoo hagaajinayso ama nadiifinayso waxay heshay baqshad 1945kii la diri lahaa baqshadii ay furtay waxayna akhrisay waraaqda ku jirtay waraaqdaasna ama warqadaas waxaa qoray gabar la yiraahdo Virginia waxayna u qortay ninkeed oo waagaas ka mid ahaa ciidamada Mareykanka 1945kii oo la yiraahdo Rolf marka lama hubo in ay qortay waraaqdii oo ay diri weysay kadib waraaqdii ka dhuntay ama way diri lahayd laakiin waraaqdii ayaa ka dhuntay macnaha waxaan ka wadaa waraaqda qaabka ay u dhuntay iyadoo diri rabto may ka dhuntay waraaqdii ama way diri weysay kadib guriga ay dhigtay
kadib way dhuntay. Calaa ayt xaal gabadhii waraaqdii ay soo sawirtay, sawirkana waxay soo saartay Facebook. waxay is dhahday laga yaabo labada qof oo waraaqdan iska leh in ay nool yihiin, gabadha qortay ama ninka loo qoray. marka Facebook ay soo saartay sida ay ku heshay ay meesha ku soo qortay. waraaqdii waxay gaartay wiilkan waxaa dhalay gabadha oo warqadaas qortay iyo ninka loo qoray. gabadhii oo sawirka Facebooka soo saartay ayuu la soo xiriiray, kadib way kulmeen. kadib waraaqdii wuxuu u geeyey aabihiisa ayuu waraaqdii u akhriyey, xasuus ayuu geliyey. laakiin hooyadiis ama gabadha soo qortay waraaqdaas 1945kii waxay dhimatay 6 sano ka hor. intaas aan idin soo bandhigay, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen. haddaad ka heshay fadlan share, like, subscribe. Snapchatna ha ilaawin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.